nin dhagax weyn sida oo la yidhi buur kor oo markuu cabbaar koraba dib u soo dhacaya oo dabeetana shaqadaa u wadaya shaqadan uu sheegaya waa maxay waxay leeyihiin bini aadamku jiritaanka ma fahmi karo waxa ku abuuran inuu values iyo dhaqan iyo qiimo iyo ilaah iyo aakhiriye wax raadiyo si natiijo ma gaadhayo marka waxaynu wadnoo dhamme waa cabas gaaladan isu awowga ee isku abtirsatay ee saddexdan filosofaan sheegayo oo qaarkood nobel prize lagu siiyey waxaasi waa wax sheegaya qof bini aadama oo madhan qof bini aadama oo madhan ama macnola aan qiimo lahayn mawduucan waxaa laga yaabaa intiisa badan inaan akhriyo axadulikhwa idinla joogaa jeedinaya laakiin mawduucu iyo qaabka ay u fakerayaan waayo waxaad moodaa dunidu markay isku furantay inuu noqday dhaqan qura oo laakiin dadka hogaaminaya inaan aqoon badan u lahayn dhaqamada maanta dunida ka socda intiisa badan waxaa hogaaminaya nimanka reer galbeed yurub qarnigii 19aad waxaa soo bilaabmay filosofigan la yidhaahdo existentialist ama falsafa alwujuudiya waa falsafad doonaysa inay ilaahay dafirto waa waxaana iminka maqashaana in badan lagu dhawaaqay humanismka la yidhaahdo bini aadamtinimo ilaahay iyo jiritaankiisa iyo aakhire iyo jiritaankeeda iyo waxaasoo dhan inta laga tago la dafiro ayaa waxaa la rabaa dunida in dhaqan uu bini aadamku isagu samaysto min sancihiya in la sameeyo wixii la doona markaa lagu magacaabo aragtidaasi yurub bay qarnigii 19aad xoog u hirgashay gaar ahaan filosofkii denmarkiska ahaa ee Søren Kierkegaard markuu bilaabay inuu waxaan qoro isagoo waliba isagu isqarinayo under pen name ku qoraya magac mustacaara aan magaciisa rasmiga isticmaalaynin waayo wakhtigaa kiniisadda dawladda ka mid ahayd oo uu cabsanayay muddo markay socotay laba falsafadood oo kale ka sii dilaacay mid waa nin markii dambe waa shayba laakiin falsafadiisuna waalida una ay ahayd oo Friedrich Nietzsche la yidhaahdo oo jarmal ah nimankani intooda badani waana falasafa waana udaba waa niman gabiya oo maansayahanaa oo riwaayadaha qora oo linguistica oo waxaa ka warrama isla markaana filosofrisa Nietzsche wuxuu bilaabay falsafo lagu tilmaamo absurdism maya nihilism waxay yidhaahdaan ama nihilism luga alcarabiya waa alcadamiya waa noloshu inaan wax value wax qiimo lahayn waxba jirin wax walba wuu dafiray wax walba wuu dafirsan yahay waxa ka sii dilaacay talo maxaa qolyahan u sheegaya gaalada habaarka qaba mid aan dhaamin oo Faransiisa oo Albert Camus la yidhaahdo oo isna markaa hogaaminaya falsafo lagu tilmaamo alcabathiya absurdism waxa uu calaamada falsafadooda nin dhagax weyn sida oo la yidhi buur kor oo markuu cabbaar koraba dib u soo dhacaya oo dabeetana shaqadaa u wadaya shaqadan uu sheegaya waa maxay waxay leeyihiin bini aadamku jiritaanka ma fahmi karo waxa ku abuuran inuu values iyo dhaqan iyo qiimo iyo ilaah iyo aakhiriye wax raadiyo si natiijo ma gaadhayo marka waxaynu wadnoo dhamme waa cabas gaaladan isu awowga ee isku abtirsatay ee saddexdan filosofaan sheegayo oo qaarkood nobel prize lagu siiyey waxaasi oo adab iyo falsafa wada socda ah maxaan u tilmaamayaa dudub ahaan waxay leeyihiin noloshu ilaah ma jiro oo aakhira ma jirto oo qiyam iyo values bini aadamku uu leeyahay ma jiro oo wanaag ma jiro oo shar ma jiro maxaa jira hadda waxaasoo dhan waa dafirsan yihin dabeetana
waxay leeyihiin ma macna alxayaa noloshu maxay qiimo leedahay qaarkood waxay leeyihiin markaa kuwaasi jawaabahoodu qiimo ma lehe qofku ha iska ictizaalo meelihiisa intuu fadhiisto ha fakero qolana waxay leeyihiin noloshu waa cabate ha la dheelo waa dheeldheelkaa un qiimo kaloo ka dambeeyaa ma jiro labadaa waxa u cagsiya wixii diin aaminsan u nisbo sheegata alle iyo aakhiro inuu jiraan falsafadaasi muddo markay socotay dagaalkii labaad ee dunidu markuu dhammaaday bay midho keentay way midho dhashay waxay isu beddeshay dhaqan iyo suluuku bulshooyinku ay ku dhaqmaan awal aaraa falsafiya oo bugaa ku qoran bay ahayd laakiin marka kan waxay isu beddeshay dhaqan iyo suluuk iyo organizations iyo system iyo nidaamo ilaa xadda dhowaan 2015 baa filosof faransiisa oo Quebec ku dhashay baa wuxuu qoray buugga afka faransiiska ku qoran la yidhaahdo nidaamu tafaaha baa la yidhaahdaa bettiness system waa wuxuu tilmaamaya dunida dadka maamulaa inay yihiin tawaafihdi inta xidigaa waana inay taafih yihiin tafaahadii baa system laga dhigay buu leeyahay adduunku systemku u socdaa waa system ah dadkii bilaa macno ahaabaa siyaasadda u haya dadkii bilaa macno ahaabaa dhaqaala u haya dadkii bilaa macno ahabaa hoggaaminaya aadanuhuna waa inuu u noolaadaa si aan macnoba ku jirin si aan macno ku jirin tusaalayaal kooban baan idin siinaya tusaalayaashaasi waxaa ka mid ah maalan waxaad arkaysaa nin dhallinyaro ah oo maryuu qaadanaya ku mashquula laakiin doorashadiisu ay tahay marada ugu liidata mara dildillaacsan oo jeexjeexan oo caynkana waa ogtiin mara dildillaacsan inaanay nolosha qiimo ku lahayn qof kastoo bini aadama garanaya laakiin haddana markaad tagto sheekh cabdirashiid baaberi iyadoo baarliin meelaha ka khudbadaynaya inaan soomaaliyada mara jeexjeexan sitaysa soo taagay dabeetana wuxuu yidhi su-aal baan ku weydiinayaa sheekhaa wuxuu yidhi horta walaalkeen intaanan su-aashiisa ka jawaabin aan waxoogaa isugu dardarro inanka surwaal u iibinna buu yidhi yacni qof bini aadama oo lacag ka bixinaya mare la dildilaaciyey oo weliba marada la dildilaaciyey ay ka qiimo badan tahay markay isku rakibantay surwaalka jiiniska uu leeyahay haddaan la dildilaacin iyo haddii la dildilaaciyo wuxuu qaalisan yahay marka la dildilaaciyo awzit saad u malaynaysaa markaa bini aadam laba surwaaloo isku mida ka dildilaacsan uu agtiisa qiimo badan yihi markuu doorasho sameeyo uu kaa dooranayo dhan kale waxaad arkaysaa dawaafihdaasi dunida innagana waa inugu soo socotaa un badhna waa haynaa dad madaxooda iyo timahooda un ka shaqeeyo ku cayaara mid dhankaa xiira mid zagzaag ku sameeya mid dhoor u sameeya waxay shaqo qabtaan oo dhammi wax weeyaan maalinba inuu timahaa dhan gooyo mar waa wada xiirayaa mar dhan buu xiirayaa mar dhoor buu samaysanayaa mar sida diigguu u samaynayaa mar waa kallaraynayaa wuxuu ku mashquul yahay markaasaa la leeyahay weliba intuu tago ra'iislaa lacag badan laga qaadaya kuwa jeexjeexa sameeya waa lacag qaaliya maaha laba mid aha miskiinkaagan cagafta loo gelinaya lama qiimaha haddaad dhoor doonayso ama diig ama wax la mida waa system waa lagu booloshaynaya rinjiyaa la marinaya waa la maydhaya shaqo badan baa lagaa qabanaya marka waa tawaafihdu waxay keentay maalan waxaad arkaysaa siduu Noam Chomsky tilmaamayey dowlado dhan ama ummado dhan ama system dhan oo nidaam ilmalaahi bini aadamka u sameeyey in dadka la waalo oo la mashquuliyo dunid dhan oo ooyeysa maxaa la ooyeysaa kubad baa laba birood dhex martay how is it say kula tay aadana dhan oo garoon fadhiya oo ilmadu ka da'ayso oo waxay la ooyayeen ay tahay kubad baa laba birood dhex martay tiim hebel ka badiyey ونظام الملاهي concerts niman baa heesaya waagii hore waxa lagu heesaa macnay lahaan jireen adab macno leh ninka taagan haddaad u fiirsato wuxuu ku hadlayo gurigaygii baan ka soo baxay waddadaan soo maray gabadhidaan jiidhay intaasuu ku hadlaya markaasaa wax la tumaya